jaynoo dunida u tiro badan oo wax soo saarkiisu 18 trilyan ka badan yahay dadna u tiro badan baa arka isna inaanu kaligiis ku fillayn si awgeed buu samaystay BRICS India oo dalkii labaad ama koowaad ba noqonayo tiro ahaan inuu ku darsado Brazil in lagu soo daro South Africa in lagu daro Iran in lagu daro dadka intaasoo qaaradood ku nool baa waxay arkeen taxalufaadka kale inaan iska dhicin karaynin inay iyana maxay inay isu tagaan mooyaane laakiin muslimkii la yidhi ummad waaxida baa tihiin 56 dowladood buu marayaa maanta casrigan aynu joogno maalan dowladaha ugu xooga badan leh maraykan waxaa la yidhaahdaa GDP wax soo saarka waddanku wuxuu marayaa 25 trilyan sanadkii laakiin wuxuu arkay inaanu haddana isku fillayn uu u baahan yahay ururo dhaqaalo uu urursado dad uu soo dumo ururo caskariya uu ka tirsanaado taxalufaad inuu yeesho isagoo tari ahaana 100 milyan ah dhaqaale ahaana 25 trilyan wax soo saarka sanadkiisu uu yahay yurub iyadoo dowlado yaryar oo marka dunida loo eego xooggan 3 trilyan 2 trilyan 4 trilyan soo saar leh haddana waxay aragtay dunida maanta la jooga inaanay waxba ka noqonayn inay isku ururta mooyaane markaasay isu tagtay iyadoo wax soo saarkeedu 15 trilyan yahay maraykan 25kiisa iyo 15ka kale u arkaa intuu isku daro inuu dunida kale ku gumaysto jaynoo dunida u tiro badan oo wax soo saarkiisu 18 trilyan ka badan yahay dadna u tiro badan baa arka isna inaanu kaligiis ku fillayn kasuu raadiyey isna inuu wax kala abuuri karo si awgeed buu samaystay BRICS India oo dalkii labaad ama koowaad ba noqonayo tiro ahaan inuu ku darsado Brazil in lagu soo daro South Africa in lagu daro Iran in lagu daro labada hore mooyaane xataa qaaradaha ma wadaagaan waa kala durugsan yihiin dadka intaasoo qaaradood ku nool baa waxay arkeen taxalufaadka kale inaan iska dhicin karaynin inay iyana maxay inay isu tagaan mooyaane laakiin muslimkii la yidhi ummad waaxida baa tihiin 56 dowladood buu marayaa bale 56kaasi ayaan ku qanacsanayn inay sii wada joogaan ee sii kala filqamaya qoladii hore hadday isku dayayeen inay ururaan kuwani waxay rabaan inay kala filqamaan waa Soomaali waa Liibiya waa Suudaan waa Suuriya waa Ciraaq waa inta kale ee hoosta ka guuxaysa marka waxaan leenahay lababa inaynu si dhaba u rumaynaa bay u baahan tahay dunida inaad wax ka noqotaa inay ku xidhan tahay tiradaada iyo tayadaada iyo dhaqaalahaaga iyo waxaaga taasna inaad wax iska dhicin karin inaad cid badan tahay dhaqaale iyo dadba mooyaane dunida maanta la joogo beelan noolaan maayaan inagu beelaynu nahay beelo nolol kuma leh marka in khilaafkuna xun yahay wada jirkuna wanaagsan yahay waa fikrad aadanahoo dhami rumaysan yahay laakiin say u dhici kartaa saad khilaafna uga baxsan kartaa wada jirna u heli kartaa waxay u baahan tahay inaad xuluul raadiso waxaan xal lahayna ma jiro taariikhyahanada dunidu marka ay baadhaan xadaaraadkii dunida ee dumay maalan qarnigii 20aad inka ugu ballaadhan ay yidhaahdaan taariikhyahan buu ahaa Toynbee odaygii Ingiriis markii dambena Maraykanka noqday waxaan filayaa dhowr iyo 20 civilization ee dunida soo maray ayuu kitaabkiisa taariikhda kaga warramaya History of Civilization 21 ka mid ah xadaaradahaasi way dumeen 7 ka midana waxba ka sii jiro ka nool
daraasada intaa leeg markuu sameeyey wuxuu ku gabagabeeyey weedh keliya oo wuxuu dhahaa alumamu tantaxir walaa tuqtalu qatla walaa tamuutu qatla ummaduhu way isdeldelaan yacni iyadaa isdisha ee dabad lagama dila buu leeyahay xadaaraadka iyo umanku waxay u dhintaan buu leeyahy waa intixaar waa belo gudaheeda ka bilaabanta uma duntay haddaad aragta buu leeyahay ma aha cawaamisha khaarijiga oo keliya waxa inta badan wax dumiya ee waa cawaamisha daakhiliga bay u badantay isagu tajaarib bini aadama uu daraaseeyuu ku gaadhay natiijadatan ilaahina qur-aanka si kooban baabuu inoogu sheegay muslimiintii yidhi waanu jabnay ilaahay wuxuu ku yidhi qul huwa min cindi anfusikum idinka xaggiinay ka timi baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala dhibtuu idinka idinkaga timi huwa min cindi anfusikum